waxa laga yaabaa xanuunka waalida la yiraahdo Soomaalida ma ahayn xanuun ay caadi u yaqaaniin haatan se waxa laga yaabaa dad wadankii tagtaan inaad aragto numberka waalida oo aad u tiro badan tala magaalada Hargeysa laba dhakhtar baa joogo nina psychiatrist yahay nina maskaxda qolada qasho u yahay surgery-ga maskaxeed ninku takhasusaya labada ninba waa la kulmay waxa ugu weyn ee ay saarayeen waxa kamid ah ee bulshadana caafimaadkeeda yani total aan wax badan looga qaban karaynin inuu qaadku yahay labada ninbana dad baan u geeyay buka oo madaxa xanuunayo su'aasha koowaad ay weydiinayeen waxa ahayd qaadka ma cuntaa su'aasha labaad ay weydiinayeen waxa ahayd haddaad rabto inaan ku daweeyo qaadka ma joojinaysa yani either of the two marka hore diagnosis-kiisa waxa qasab ku ah inuu yiraahdo dadka kani waa nooci qaadka cuni jiray marka labaadna wuxuu leeyahay dawada waxaan ka bilaabaya haddaad qaadka joojinayso haddii kale wax taasiir iyo raad ay kugu leedahay ma jirto idan waalidii buu badatay caafimaad darradii baa badatay xataa qaabka loo cunaa waxay yidhahdeen xanuunadii infectionka ahaa iyo wixii jiray oo dhan buu noqday wax faafiya meel walba marka 10 qof intay isku soo qafisho habeen iyo maalin baa ay wada hadlaan una koob yar biyo la wada darsaday inta la wada fadhiyo waxa laaliya wixii xanuun mujtamaca ku jiray oo dhan wuxuu noqday si fudud wax ugu faafi kara wax kale daaya haddaanu dhib kale lahayn maanta magaalada Hargeysa mesela dhib kale oo dhan haddaad tiraahdo male sanitationka ku daafadiisu inta yeeshay wax yeelay ma jiro haddii la yiraahdo magaalada Hargeysa ku daafadiisa laga ururiyo inta uu ku daafadnimo ku geysto ayaa waxay ka badan tahay waxa kale oo dhan oo ku daafadiisii baa loo taaglayay meel la dhigay iyo meel la geeyay iyo wada laga qaadayo si uu yahayba idan caafimaadkii mujtamaca meel xun buu marinaya dhaqaalihii bulshada meel ka sii liidato marinaya مثلا sheekhu ihsaayaadku soo qoray waxa kamid ah xamar qaadka la keeno qura 7 ilaa 10 tan baa la keenaa daily $85,000 baa laga yaabaa in laga bixiyo haddaad hal sano xisaabiso kaliya waxa laga yaabaa ilaa 26 milyan inuu yahay waxaan u malaynayaa Hargeysa inta la keenaa inay inta in badan ka badantay haddii marka aad ku xisaabtanto waxaan oran karaa qaadka hantida inaga baxdaa maalin kasta hal warshad ay Soomaaliya ka dhisi lahayd daily waxay u badnaan lahayd inaad warshad samayn kari lahayd hantida qaadka ku baxda hadii la xisaabiyo oo waliba inta ugu badan la u tagta cid adiga hagardaamada kugu haysa yani waxaad feed garaynaysaa cid aad rabtay inaad iska celisaabad adiga feed garaynaysa oo Ethiopia ma taqaana qaadku halku ku jiro safaarada Mareykanku mesela taqriirka ay soo saartay wuxuu tilmaamayaa waa product-ka afraad ee Ethiopia dibadda u dhoofiso yani wadan dhan baa wuxuu ku xisaabtamaya waxyaabuhu dibadda u dareeyo dakhliga soo gala dabeetana fourth number 4 waa qaad meel kale lama geeyo waqooyigu baaba la keenaa ka number 4 ka Ethiopia intaajkeedii oo dhan galay meelba ma tago ee wuxuu tagaa waa inta waqooyi way koonfur waxa lagu cunaa kii kale gaagabna idan dhaqaalihii ummaddu wahaan gun la baa la dhaaminaya oo yani dhaqaale ahaan si غير caadiya ayuu mujtamacu u saameeyay bulshadii education ile hatta society-ga qiyamkiisii ayuu bedelay hal yaaba subaxii haddaad soo taagto from 6 o'clock qaadku yaala ilaa iyo habeenkii uu soo dhaca marbana nooc cusub baa soo dhaca noocaas hadda yaalo lagu qaylinaya mar dhowba nooc magaci ka gadisan tuulooyinka Ethiopia wax magac ku yaalo dhan buu ka yimaada midba si buu yara dhamaanka kale wax buu kaga yara gadisay waa ka gaagaaban waa ka dhaadheeriyay waa ka yara lacag qaalisay saacadan waa bandara saacadan waa kan kale every hour waxa laga yaabaa nooc jadiid inuu soo dhaco nooci hore ka gadisan kuwa cunaa imika waxay u batay berigi hore mijin ama bog ama laba bog waxa la cuni jiray hadda waxa weeyaan waxay u badan tahay noociyaadka oo dhan aad wax ka dhadhamiso oo galanka hore kii la cunay nooc gaar iyo duhurkii nooc gaar ah soo dhacayo fiidkii marka laga kaco nooc ka dambeeyo gaar oo kala soo dhacaya idan waa mashaakil aad u tiro badan qiyamkii dadku marka way isbedeleen halga yaaba imka meelaha lagu iibiyo haddaad tagto even inay dadkani waalayiin adiga garanay haddaad taagto kabadh yar baa meel la dhigaya bariga hore de kabadh yar oo soo laga soo saaray jiray waa miiskan oo weyn oo jawaan dusha laga saaray moor garaysan dabeetana waxa laga yaabaa 10 nin baa iibinaya
ilmo yar baa halkaa fadhiyo durbaantumaya 10 kuba way boodboodayaan midh yar baa durbaanka haya isagu 10 kaniba way boodboodayaan waa la wada qaylinayaa dhammaantoodna haddaad view waxay ku fiicnaan lahayd waxaad moodaa malaha emailkii lay soo diraana si wanaagsan oo akhrinine haddaan moodaya in kaa laga warramayo hal video camera baan idin soo duubi lahaa marka idinkaa garan lahaa dadkan inay waalayiin inay mayar qabaan haddaan videoga yar soo muujiyo waxaan u malaynayaa in wax badan la garan kari lahaa noociyaadku sidii dadka waxaa ka lumay qiyamkii dhammaantii xataa miqyaaskii shaqadu waxaa laga yaabaa inflationku inuu aad u sarreeyo lacagtuna inaanay waxba goynin waayo waxay ku qiimaysantahay qofku 2 mijoodoo jaada siduu heli lahaa shaqadana qofka u diraysa haddaanay 2 mijoodoo jaad iyo raashinkii wada goynaynin marka qiimuhu idan way ka qaalisantahay iminka waddanka meelahan qaadka lagu cunin markaad u eegtiyo meelaha qaadka lagu cuno way kala qaalisan yihiin dadkii yaryaraa wanaagga waxay u arkayaan in la qayilay 6 jir qayilayaad arkaysaa waayo aabbihii adeerkii dadkii oo dhan rag iyo dumarba uu sii socdaa yacni mujtamacii oo dhan waxaad moodaa inuu qaad cunayo family problemska jira ee ugu badan dee qaad unbaaba la isku hayaa waa oday ama yar yar wixii odaygu uu shaqaynayay ama oday isagu wixii uu shaqaynayayba qaad ku dhameeyey waa mujtamac dhan oo hantida soo gasha ay god daloolo kale ku shubanto dee caafimaadka iyo cunnada iyo si uu fakarayso wadaadku ma laha in cunnaduu joojiyaa calaamaad jirta soomaaliya aad caan uga ah haddii ay dhacdo maalin in qaad joogsado sababtu doonaba ha ku joogsadee 5 galabnimo casho heli maysid waayo mujtamaca shahiyadoodii baaba furmayso dadku waxbuu wada cunayaa 5 galabnimo hudheel wal iyo wixii la karin jiro dhammo way dhammaanayaan that means waxaad ogaanaysaa mujtamaca kani waxa uu wax la cuni waayayba inay tahay bahalkan uu wada cunay nin waliba markuu bahalkan ka dabiray cunno kale iyo caafimaadkiisa iyo wixii oo dhammo uu baaba'ay bulshadii maanta waxaad moodaa xataa dee socially nimankan waska sheeganaya hay-aadkoodu waa waxyaabaha ugu badan ay maalgelinta ku sameeyaan hay-ada dhan baa jooga $500 bay amaahiyaan dumarkay u badan yihiin bay amaahiyaan $450 bay amaahiyaan waxaana laga rabaa in uu qofku soo celiyo $500 yani hay-addani waxay qaadanaysaa maxay 12% in ka badan oo riba bankigu ma qaado haddana waa hay-ad samafal $450 baa islaanta loo dhiibayaa $500 waa laga rabaa $450 baa $50 oo riba laga doonaya 12% lacag ka badan mostly lacagtaana waxay ugu sameeyaan kabadh qaada islaanta kabadhna waa loo dhigaya qaadkiina waa loo keenaya maanta waddadaad martay ee 2 dumar qaad ku iibinayeen 3 casho kadib haddaad soo marto 4 bay marayaan bil kadib haddaad soo marto 6 bay marayaan 2 bilood kadibna laynkuba waa dumar baa fadhiya يعني waa falsafadaad arkayso dumarka in guriga laga soo saarayo shaqo in loo samaynayo laakiin shaqo samayntii baa waxay tahay shaqo samayn faasid ku xidhan oo dhanna riba kaga xidhan dhanna kabadh qaada kaga xidhan waana can qasdin oo ururo dhan oo samafal sheeganaya wuxuu ka shaqeeyaaba ay nooca kan tahay idan waxaad arkaysaa inay tahay dadkan baabi'iisa oo la dadejinayo taayirkani si uu socdo dumarkanina in badan oo ka midi waaba xijaabantaa laga yaaba daqaadka iibinaysa waana ku qasbantayba in badan oo ka mida laga yaaba ninkii baa isna noqday qaadwale halkan fadhiyo oo aan shilin reerka keenayn carruurtii baa ku agbaktiyaysa qaar badan waxaa laga yaaba inay naftu u geysay laakiin waxaad dareemaysaa mujtamacu siduu socially uu sii baaba'ayo dee guriga markay islaantiina ka timaado odaygiina uu ka yimaado labadii midna qaad cunayo midna iibinayo kuwa yaryar maxaad u malaynaysaa markaa noocayana noqonaya yani tarbiyada soo baxaysa iyo mujtamaca kani si uu ekaanaya marka waxaan odhan karaa mas'alada ka warran social problemsku qaadku abuuro waxaan u malaynayaa nin waliba familigooda inuu in yar dib u daraaseeyo dib ugu yaro noqdo ayaa ku filan inuu arko qaadku inta uu dhib inugu hayo qaadku inta uu dhib inugu hayo sawaa ha la yidhaahdo waa mukhadar ama mukhadar ma aha ha la yidhaahdo waa shayga koowaad ee problem makerka ah qiso yarna haddaan maalin idin tilmaamo maalin baan magaalo tegey waa 94kii meelahaasaan u malaynayaa anigoo meeshii marayaba rasaas dhinacayga ka dhacday gaadhaa la weeraray gaadhiga maxaa ka jira baan ku yidhi waa maxay problemkani waxay igu yidhaahdeen waa gaadhigii 5aad ee weerarkani ku dhaco sababtuna waxay ka bilaabantay baag qaadabaa qolo ka qaaday baag qaadaa la qaaday qaadwalayaashii gaadhay qaadeen kuwii gaadhi kaley qaadeen 5 gaadhaa la marayaa inta la kala qaaday
problemkuna waa baag qaada yacni problemiska waddanka ka abuuran 80% siyaasaddan janjeedha nin qaad doonayaa janjeedhiyey mooryaantan iyo waxa kan xiimayoo dhan dad qaad doonaya waxaanoo dhiba sameeya waayo mujtamacu markuu wada balwadna yeesho hantina jeebka uu ka waayo qofkii wuu ku qasbay inuu waxa kan cuno waayo wuu adabtgareeyey addicted buu noqday mana haysto hanti uu ku bixiyo therefore any means uu ku heli karo waa inuu helaa any means dawlad la xadiya wax la isweydaariya dad la boobiya si kale wax loo dhacaya waxaad odhan kartaa mashaakilka soomaaliya ka jira 80% qaad baa abuura basic u ah haddaanu isagu joogi lahayn aad odhan lahayd malaa wax badanoo ka mid ah waa laga baxsan kari lahaa statistics bay ku fiicnaan lahayd inaan soo ururiyo waayo arqaamta qura haddaan akhriyo waa idinku fillaan lahayd ixsaa'iyaadkuna maanta oo waxyaabaha ugu waaweyne bini aadamka lagu qanciyo inkastoo statisticska soomaalidu ay aad u yaryihin laakiin mujarad inaan wax soo weydweydiiyo kabadhada qaadka lagu iibiyey iyo ninka qaadka keeniya intan baa idinkaga fillaan lahaa mushkiladda jirta laakiin nasiib darro halkay igu soo gaadhay laakiin inkastoo waddankii tagaa waxaan u malaynaya inay ishiisu macallin u noqon doonto uu qiimaynna karo mushkiladda ay ku hayso soomaalida ingiriiska joogta isdilku uu ku badan yahay dadka ama taranjire ama waxaana isdishay problemka ugu badanina waa dadkii qaadka cunayay in qaadun u fadhiyey oo 10kii gini ama 30kii gini ee caydhu siinaysay dhammaaday oo maalin walba warqad looga soo dirayo hooyadii ama walaashii ama qof kaloo baahan oo isagu shilinkii qaadkaba waayey dee mooy ingiriiskana inay aragteen waraaqda yara caydhaba qaad walaha la sii siiya waa loo saxeexaa markaa markuu israa way kugu dulbaktii doonaana in yaroo baasta intuu ugu rido ayuun bay cunaan dabadun bay meesha ku hayaan kada iyo ka hore iyo ka dambaba meeshun bay ku cunaan hantidoo dhammina meesha ku baxdaa idan bahalkani mashkilad maynugu haya haddaynu idhaahno waxaan odhan karaa soomaaliba mashkilad ma leh kale oo aan qaad ahayn wallahu aclam